السلام عليكم وبرنامج كيني دعدوينك عالمك waxaan maanta uga hadlaynaa dalka Japan ku dhawaad 80 sano ka hor Japan waxa ay ahayd meelaha ugu halista badan ee uu aadami ku noolaado dal dagaal badan ku jiray dal masiibooyin badan haysteen oo ay noloshu ku adag tahay dal dagaal kula jiray dal kasto ay diris wadaag yihiin dal duulaan ku ahaa dalalka ka fog dhulkiisa dal dadkiisu nolol halis badan ku gadaamantahay ku dhex noolaa waxay ahaayeen kuwo ku noolaa nolol aan horumar iyo amni toona lahayn waxay dagaal kula jireen dalalka Shiinaha Ruushka iyo Mareykanka malaayiin ruux ay dagaaladaas kala dambeeyay ku waayeen waxa lagu garaacay hubkan ugu halista badan ee uu aadami sameeyay boqolaal kun oo qof ayuu maalmo isxigxiga hubkaas noloshooda galaaftay Japan xaaladaas liidata way ka soo baxday oo waxa ay garatay in dagaal iyo cadaawad sii jirta aysan noloshooda wanaajinaynin maanta waa dal horumaray waliba kuwa gaaray horumarka ugu sareeyay ka mid tahay waa dalka dhaqaalaha saddexaad ee ugu ballaaran dunida haysta waa dalka afraad ee alaabta ugu badan dibadda u dhoofsha kalena soo dego dal amni ah oo ka mid ah ama hormuud u ah dalalka ugu amniga wanaagsan uguna nolosha wanaagsan dunida dal heerka horumarka aadamaha kalimaha hore kaga jira dal dadkiisu yihiin celcelis ahaan kuwa labaad ee ugu cimriga dheer dunida in ka badan 70,000 oo qof oo ka mid ah bulshada Japan waxay da'doodu kor u dhaaftay 100 sano dal haysto xoog bulsho oo shaqeeya ahna kuwa celcelis ahaan ugu badan ee haysta shahaadooyinka jaamacadeed dal haysta nidaam tiknoolajiyadeed oo heer sare ah lehna shirkadaha ugu awooda badan ee soo saara agabka elektarooniga casriga ah Japan waa dal ka mid ah wadamada leh ciidamada ugu awooda badan dunida waa dalka sideedaad ee dhaqaalaha ugu badan ku baxsha ciidamadiisa Japan waxay noqotay 2015 dalka shanaad ee haysta ciidamada ugu xooga badan dunida dalkii 80 sano ka hor ku jiray marxaladda liidata cadawga badanna ay ku hareereysnaayeen maanta waa dal kulansaday aqoonta ilbaxnimada dhaqaalaha nabadda iyo tiknoolajiyadda adduunka kana mid ah ururada ugu saameynta badan dunida waxa lagu tilmaamaa Japan wadamada ugu taariikhda adag leh dunida waa dal jasiirad ah oo aan lahayn wax macdan ah haddana uu ka dhac dhulgariirada ugu badan dunida qiyaas ahaan dhowr kun oo dhulgariir ayaa sanad walba ka dhaca badankoodna wax dhibaato ah ma keenaan muwaadiniintiisu waa kuwo ku noolaanaya haysashada mid ka mid ah dhowrka baasaboor ee ugu xoogan dunida halkaas waxaynu ku ogaan karnaa in bulshooyinku ay waqtiyo adag galaan ayna ka bixi karaan haddii ay u tafaxaytaan sidoo kalena waxa aynu ku ogaan karnaa in nimcada uu dal haysto ay tahay dadkiisa muhiimaddu maahan in dalku uusan lahayn kheyraad dabiici ah se waxaa muhiim ah in uu haysto bulsho ka dhigi karto dalkaas maran mid ay bulshooyinka kala jeclaystaan una camiri karaan waxaa intaa noogu eg warbixinteeni Japan waxaa noo xigi doona wadamo kale oo aan halkan idinkugu soo gudbin doono waa bahda kubciye